Guddida joogtada ee Golaha Wakiilada Somaliland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta aqalka baarlamaanka ee Somaliland ayaa waxa ay sheegeen inay kalsoonidii kala noqdeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cudi Injineer Faysal Cali Waraabe sidoo kalena waxay hay'adaha wada shaqaynta la iyo xukuumadaba u soo jeediyeen inaanay wax wada shaqayn la yeelan haddii ay dhacdana ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayaan cidii wada shaqayn la samaysa sidoo kalena waxa ay sheegeen inay hay'adaha sharciga la tiigsanayaan gudoomiye Faysal Cali Waraabe waa kan mid ka mid ah xildhibaanada guddidaasi oo akhrinaya qodobo ay soo saareen guddida joogtada ee Golaha Wakiilada Somaliland xisbi urur siyaasadeed waxa ka mamnuuc ah in ay faafiyaan daabacaan kicin iyo iska hor imaad dadweyne wiiqaya midnimada dalka ama waxyeello u geysanaya nabadgelyada guud maadaama oo dadweynaha ku booriyay iska hor imaad ku salaysan in dadka reer Sool xoog lagaga qaaday isla markaana lagaga haysto deegaamada Coodanle iyo Qorlugud ugu dambeyntii maadaama oo mabda ahaan aanu jirin qof sharciga ka sareeya no one is above the law isla markaana uu yahay mas'uul qaran gudoomiyaha xisbiga u cud Injineer Faysal Cali Waraabe wuxuu ku kacay fal sharci darro ah oo ah ku boorin dambi gelid sida waafaqsan qodobada 320 ee xeerka ciqaabta guud oo u dhigan sidan qof kasta oo si fagaaro ah ugu booriya qof kale inuu galo cid mid ama in ka badan dambi waxaa lagu ciqaabayaa falka ku boorinta keliya sidoo kale wuxuu ka hor yimid qodobka 321 ee xeerka ciqaabta guud iyada oo xeerku dambi ka dhigay ku boorin in sharciga laga hor yimaado oo u dhigan darteed wuxuu guddida joogtada ah ee Golaha Wakiiladu soo saaray go'aanada in laga bilaabo maanta uu yahay nin aan ixtiraamin kuna dhaqmin dastuurka iyo xeerarka dalka 2 laga bilaabo maanta inaan loola dhaqmin loona aqoonsan in uu yahay gudoomiyaha xisbiga cud wax wada shaqayn ahna aanay la yeelan Golaha Wakiilada xukuumadda in guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta axsaabta qaranku ka qaado xasaanada si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan Faysal Cali Waraabe oo baalmaray xeerarka kor ku tilmaamay in xeer ilaaliyaha guud ee qaranku ku oogo dhammaan dambiyada ka dhashay hadalkii Faysal Cali Waraabe warbaahintiisa xukuumadda laamaheeda kala duwan iyo hay'adaha caalamka ee inaga caawiya dimuqraadiyadda hay'adda la macaamishana tallaabo sharciga laga qaaday